جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena cusub ee la magac baxay toddobaad iyo sheeko. barnaamijkeena maanta waxaa ku eegi doonaa ciwaankeena uu ahaa dumar ama kasamir ama usamir. dhageystayaal waaba waxaa jiray nin qabay haweeney cirweyn oo neefkii la qashaba kala bar oo bar laga siin jiray iyada. wiilal badan bay naagtu u dhashay ninkeeda. dhibaato weyn bay ku ahayd ninka si uu cuno u siiyo afadiisii cirweynideeda awgeed. haddii uu iska furana wuxuu ka baqay in wiilashiisu oo ka dacdaroodaan. hunguriweynidu siibatan haweenka waa ku cayb weyn dhaqanka Soomaalida. tixahan soo socda waxaa ku cawday ninkii qabay afadii cirka weyn. isaga wuxuu yidhi, cashiiradeydii caloosha haween hadda la celcelin cirweynaa. iyada oo ka cabanaysa saboolnimada ninkeeda waxay afadii ugu jawaabtay iyada. cashiiradeedii caloosha haween nin ka cawday cood yari. ninkii qaraabadiisu waxay ka tari karaan ma jirin cirweynida afadiisa. in uu iskala noolaado buuna ka fursan waayay inkasta oo qof xun ay ahayd. berigii dambe buu reerkii qashay wan buuran, hilibkiina kala baroobar waxaa la siiyey afadii cirka weyneyd. barkii kalena waxaa qaybsaday ninkii iyo wiilashiisa. iyadii cawadiiba way idlaysatay hilibkii qaybteedii. ninkiise dhowrkii cad ee ugu haray qaybtiisii wuxuu u keydiyey wiilashiisii si ay mar dambe u cunaan. kadib gurigii duleedkiisii buu ninkii iska fariistay isaga oo ilaalinaya si ay afadii ugu xadin hidikeedkaasi. naahoy waan ku arkaa buu ku dhawaaqayay mar kasta isaga oo dareensiinaya naagtu inuu ka ilaalinayo hilbaha. laakiin waxaa jiray idana ninkaasi nin la diris ahaa oo qabay naag marka ay ariga soo lisayso cantuugta caanaha inta aysan carruurta iyo ninkeeda siin. hunguri xumadaasi buu ninkeedii ku nacay afadiisa wuxuuna damcay inuu iska furo. berigii dambe baa ninkaasi u yimid ninkii qabay haweeneydii cirweyneyd si uu ugula tashado dhibaatada dhextaal isaga iyo afadiisa. markii uu u yimid buu maqlay isaga oo ku dhawaaqaya, naahoy waan ku arkaa. waryaada hadlaysa ninkii dibadda ka yimid ayaa weydiiyey. ninkii hore wuxuu ku waramay cirweynida naagtiisii oo xataa carruurteedii ka xadda cunadooda. markaasuu ku yidhi, wartaydu caanaha unbay naga cantuugtaa. ninkii dambe markaasuu ogaaday in ninkani kale dhibaato ka weyn tiisa ku qabo haweenaydiisii. markaas buu wuxuu ku tashaday inuusan iska furin naagta ee ugu samro iimaheeda. dumar ama kasamir ama usamir baa la yidhi. haddaba dhagaystayaal toddobaadkeena sheekadayna waxaa ku soo afmeeraynaa dumar kasamir ama usamir.